بسم الله الرحمن الرحيم سورة القلم سورة أيضا وسورة مكية نون الله أعلم بمراده بذلك waxay ka mid tahay xuruuftii aynu soo baranay ee macna loo garanayo uusan jirin xuruuftaas oo kale tan soo baranay ilaahay baa loo daayaa cilmigeeda ilaahay baa garanay subhanahu wa ta'ala tafasiirta qaar kood waxa soo arooraya rag culimada kamid oo isku dayaya inay fasiraan oo balbax ka sheegaan waxa soo dhan laakiin waa uun ku tiri ku teen iyo israa'iliyaad mooyaane maba yaraatee wax looma loo hayo ma jiro ayay kelimada waxa lagu gartaa ama carabiyadii luqadii carabiga quraanku soo dagay bay macna ku lahayd oo arab baa isticmaali jirtay ama ma aha quraanka macnaheeda shay ama ahadiista nabiga macnaheeda shay inta minna hadan loo haynin maxaa la isugu lugoyn basoo Allahu a'lam wa illa ilahi ba garanaya nuun kelimadaas macnaheedu waxay tahay wal qalami qalinki waa ku dhaartay rabbi subhanahu wa ta'ala iyo wama shayga yasturuna ay sadaraynahayaani ay ku qorayaan qalinka ma anta adigu matiinay maxamedow bi ni'mati rabbika rabbiga nicmadiisa sababteed bi majnuunin mid waalan matiin wa inna laka waxa ku sugnaaday nabi maxamedow la ajran ajr ba ku sugnaaday ajrkaas oo ghayra mamnuunin mid la goynayo qeyrkii alla goynayno way macna wa innaka adigu nabi maxamedow la ala khuluqin akhlaaq korkeed baad ku sugantahay cadiimin oo weyn fasatubsiru way arki doonaan fasatubsiru waad arki doontaa adiga nabi maxamed wayubsiruna ayaguna way arki doonaan oo way ogaan doonaan bi ayyikum kiina almaftun midka la fitneeyay bi ayyikum kiinaba almaftun kala fitneeyay oo waali lagu fitneeyay maada fitnaysan oo waalan is iyaga waalan inna rabbaka rabbiga huwa isagu a'lamu midkii ogaansho badan way biman idbu ogaansho badan yahay ضل لمي عن سبيله جدكي سكن لمي بأغانشة بدين وهو إساقو أعلم مدكي أغانشة بدين وبالمهتدين كوا حنوصلنا إساقو أغانشة بدين ربي هو دارتي سبحانه وتعالى سورة بالله هذا وحنا كو دارتي مخلوق كم إذا مخلوقات كيس وقلنك وحافي عن قلن كان إنا لديهم قلن خاصة قلن ماذا وحا أقوه الرئي أما مخلوقات كما أقوه الرئي سيد حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وحي أبور إلهي وحا أقوه الرئي قلنك وها قلنك إلهي أبور قلنك مركو أبورين وحو كيري قر قلنك وحو قري وحكستو دعي دونو إلهي مقادير تسابو الله حكو قري الله المحفوظ كو قري قلنك مركا مقادير تقري وكتره وحاسوق لي قلنك إلهي وكو دارنا قلنك ملائكته وحكو قريس وحاسوق لي قلنك بني آدم كو استعمالي قلن ميل وكي ما دب إلهي وكو دارنا محل وكو دارنا ومخلوق عجب بدون ووسيلة العلم سو مجد آياتك النبي كسو تقول تقدونا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بريد إلهي بني آدم وقلن كبري يصيد الله استعماله والنعمة وين قلن كان مركب وحوي أي ملائكة وحكو قريسه يعني وحوي بني آدم استعماله قلن ورنبه إلهي كو دارنا سبحانه وتعالى قلن كان كو دارتي إيه وحا يكو صدرين أيام وحا يكو قريان وحا لغو قري معناه وحويان وحا لغو قري صدر بالله قرى ملائكة وحي قريسه بني آدم كو قري وحا يسكو دحدات سلم قرى وما يصدرون وحا أي سي صبريسان قريان كاسا كو دارتي maxay tahay nabi maxamedow nicmada rabbiga darteed mid waalan matid nicmada ilaahay uu aqli kuugu nimciyay deganaansho kuugu nimciyay dulqaad kuugu nimciyay diin iyo wahyi kuugu nimciyay risaalo kuugu nimciyay nicmada sababteed mid waalan matid maxay mid waalan inta ma hay soo hadaad waalan tahay rasuulna maada noqoteen aqli iyo deganaanshana maada yeelateen murti iyo hadal toosanna maada yeelateen نعمة إلهي ما دام أي كام مقطع صوبت مد ولا المتي من والد شيء نحن كم جرى معنا الله أكتي سنة واحد كل هذا أشر أن لجوينين أو أن جوينين أما أن لجوج قلت شيئين أشر أن مرنا كمان بعد إلهي أكتي سنة كل هذا ما حيله نبكى لجوج جيسري إلهي درتي بالجوج جيسري هذا هو وقت كوسا برتي ما دام إلهي درتي اللجوج دبي أشر واحد لا أن كمان إنه جوينين معنا وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقه وين بذكر كذا كوسا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إلهي بأماني زكاه ربه تبارك وتعالى رد جيبه تسكيه والنبي أماني أخلاق وين إنه كتل سوي عائشة رضي الله عنها حديثك مسلم أصوص علي سعد بن هشام أيها عائشة ويديي أو وحاني كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أخلاق دي سسابة يعني مركزها واحد في القرآن كما أخرجه حابو يجي
kaana khuluquhu lqur'aan bay jira akhlaaqdii nebi maxamed haddaada rabto qur'aanku ah adiga qur-aankan akri akhlaaqdii nebi maxamed sal lay waslam wuxuu ahaa qur'aankan oo socda ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur'aankaoo lugaynaya soo akhlaaq cajo badan maaha taasoo rasuulka akhlaaqdiisu ahayd salawatu rabbi wasalamu caleyh akhlaaq weyn bal kutubta akhriya kutub shamaa'il ee nebiga sal lay waslam laga alifay dhaqankiisii iyo dabeecadiisii iyo akhlaaqdiisii ay culimadu ka alifeen bal kutubta akhriya yani waxa weeye bini aadan wayaba isdhihi mayse mihaal basiit ah 10 sano ninkii u shaqaynayay wiil amas ahaayee yani waxa weeye adeegihiisa ahaa wuxuu leeyahay 10kaa sane nebiga aan u shaqaynayay weligay hadalaan dhibsada kama maqlin weligay shay aan sameeyeyna maxaad saa ugu samaysay ima dhihin weligay shay aanan samayninna maxaad u samayn weyday ima dhihin iyay ka suroobi kartaa wainaka lacalaa khuluqin cadiim ilaahay subxaana wa tacaala khuluq uu ku sheegay inuu wen yahay ayuu nebi maxamed ku dul sugnaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka nebiga akhlaaqdaa leh ee dhaqankaa leh ee dabeecaddaa leh ee wanaaggaa leh yay ku sheegayaan oo leeyihin haddana waa waalay war niman yahow yani waxaa la yidhahdaa been sheeg laakiin been run u esheeg been run u eg sheeg bahal iska qayaxan oo haba yaraatee aan qabsan karinba ayay nimankani sheegayaan war nebiga akhlaaqdaa leh ee dhaqankaa leh ee caqligaa leh baa waalan war waxaas wax dhici kara ma way arki doonaan waad arki doontaa buu rabbi yidhi subxana wa tacala waad ogaan doontaa ayaguna way arki doonaan midkiina waalan oo ku fitnaysan waali alla rabbigaa subxaana wa tacala wuxuu og yahay cidda lunsan oo jidkiisa ka lunsan cidda hanuunsanna wuu ogyahay nuun allah garanaya macnaheeda walqalami qalinkii baan ku dhaartay iyo wamaa shayga yasturuuna ay ku sadaraynahayaan ay ku qorayaan ee maa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa xaalaad ku sugan tahay bimajnuun mid waalan ma tihid waina laka waxaa kuu sugnaaday nebi maxamedow laajran ajir baa kuu sugnaaday ajirkaasoo hayra mamnuunin mid la goynayo hayrkii aan la goynayn macna wainaka adigu nebi maxamedow lacalaa khuluqin akhlaaq korkeed baad ku sugan tahay cadiimin oo weyn fasatubsiru waad ogaan doontaa wayubsiruuna waad arki doon macnaa waad ogaan doontaa baa laga wada fasatubsiru waad arki doontaa waad ogaan doontaa wayubsiruuna way ogaan doonaan iyaguna way arki doonaan biayikum kiina almaftuuru kan la fitneeyey oo waali lagu fitneeyey midkiina waalan ee yani fitnaysan waa la ogaan doonaa dib bay ka kala cadaan doontaa markii abaalku yimaado wey ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cid buu ogaansho badan yahay dalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa isagu aclamu midka ogaanshaha badan wey bilmuhtadiina kuwa hanuunsan falaa tudic mar haddii ilaahay waxa uu ku siiyey falaa tudicha adooci nebi maxamedow almukadibiina kuwa xaqa beeniyey wadduu waxay jeclaadeen low tudhinu inaad soo dabacdo oo fa yudhinuuna fahum iyagu yudhinuuna ayaguna way soo dabcayaan bale nabiga oo ka amar qaadanayno ha yeelin warkiisa kulla xallaafin mid dhaar badan kulligii mahiinin oo dullaysan oon qiimo lahayn hamaazin oo dadceebays badan dadka wax ka sheego dura mashaa'in oo socosho badan binamiimin isku dirdirka u socosho badan dadka dhexdooda ka shaqeeyo fasaadiya mannaacin oo reebid badan lilkhayri khayrkana reebid badan xaqii lagu lahaa iyo khayrkana waa diida waa reebaa muctadin oo xadgudba afiimin oo dembi badan cutullin oo haddana qallabsan oo macangeg ah bacda dalika intaa la soo sheegay kadib zaniimin oo haddana kolon ah zaniimin kolon ah kolon lax ka laalaada an kaana inuu ahaaday daraaddeed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina iyo wiilal inuu wiilal iyo xoolo leeyahay darteed idaa goortii tutla la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadahanaga lagu akriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo sadareeyey laga soo qoray wey kutiri kuteentii weligeedba lagu sheekaysan jiray odhanay sanasimuhu rabbi subxana wa tacala waan sumadaynaa ninka cala alkhurtuumi sanka korkiisaan ka sumadayna sanqaroorka halkaasaan sumad kaga dhejinaynaa buu rabbi yihi subxana wa tacala ninkan sidaa loo dabagalay waxay leeyihiin culimadu waa ninkii la dhihi jiray alwaliid ibnu mugiira khaalid waa aabihii bu ah nin marka wuxuu ahaa odayaashii reer quraysheeda oo ciyaal suuqa aad u kharxun buu ah oo nebiga raggay aad ula dagaalamaya ninkaasaa laga hadlayaayo tilmaamahan ilahay ku sheegay kaas iyo waxa la midka ah nebigu ha ateecin hana ka amar qaadanin baa laleeyahy inta ilahay marka bal tilmaan ninkaa isu daba dhiga fiiri iyo khubti uu ku sheegay walaa tudicha adeecin baa lay nabiga sal lay slam kulla xallaafin mid dhaar badan kulligii dhaarta faraha badani astaan waxay u tahay isku kalsooni daro iyo inaad been sheegayso sooma dhaarta sideeda loo badiyo leanna ruux hadduu isku kalsoon yahay warka waa iska sheegaa laakiin dhaar ma daba dhigo
haddaad aragto mid warkuu sheegaba uun ka daba dhaaranahay waxbaa jira meeshaa waxbaa ku jira laf baa ku jirta meeshaas mahiinin oo haddana dullinimo badan yani waxa wey oon qiimo lahayn hamaazin oo dad ceebays badan dadkuu ceebeeyaa oo dabagalaa oo ka shaqeeya oo ceebtiisa ma arko dadkaa kale unbuu ku foofsanya mashaa'in oo socosho badan binamiimin isku dirdirka dadka laysku dirdirana u socosho badan dadkuu dhexdooda ka shaqeeyaayo waa warxumatashiil kanuu ka qaada kaasuu u geeya waa qolyuhu nabigu yuri sal ly waslam laa yadkhulu ljannata qataat dadka namiimada ka shaqeeya dadka warka u kala qaada si ay u fasaadiyaan oo isugu diraan jannada ilaahay ma galaan subxana watacala mashaa'in binamiim mannaacin oo reebid badan lilkhayri khayrkana reebid badan khayrka wuu reebaa aad buu u reebaa xoolaha wuu reebtaa xaqa lagu leeyahy wuu reebtaa nin wax ka baxaan maba ahaba waa bakayl wey manaa bukli meesha ugu dambaysu ka jooga muctadin oo haddana xadgudbo wixii ilaahay u sohdintuu u jeexay ka gudba afiimin oo haddana dembi badan dembi iskama ilaaliyo mid weyn iyo mid yartoona cutullin oo haddana qallafsan oo madax adag yani waa macangaga garina ayna gelin garina ka bixin ayaa cutulliga la yidhahda min madax adag oo qallafsan oo dabeecad cun oo macnaha waxa way macangaga weeyaan dabeecadiisu waa saas bacda dalika intaa lasoo sheegay kadibna bacda dalika intaa lasoo sheegay kadib ayuu cutulliya cutullin oo macangag ah qallafsan bacda dalika intaa lasoo sheegay kadib taana waa u helisaa wey zaniimin oo haddana kolon ah zaniimka waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey zanamada waxaa la yidhaahdaa ariga iyo yani waxa wey ama riyaha noqdeen ama idaha noqdeen meeshan macasha ah baa marmarka qaarkood ariga qaar ka mida waxaa ka laalaada cadi yar oo dhuuban baa ka laalaada oo sidii koor yar oo kale aad moodaysaa kolon baa la yidhahda kolon cadkaa yarka ah macno kuma fadhiya marka maxaa loo leeyahay waa kolon marka laba macnoba waa jiraan culamada qaar waxay leeyihiin zaniim waxaa loo yidhi quraysh kamuuna dhalanine ilmo zinuu ahaa oo aabbihii mugiira ayaa isagoo weyn wiil ka dhigtayoo waa sheegad buu ahaa isaga dhanba soo ma jeed sida kolontaan adhiga ka laalaadoo kaleetuu quraysh ka laalaaday ee kamuusan dhalanin saas waa mid oo nasabkiisaa markaa la durayaayo ninku dhalad ma ahe waa sheegad waana ilmo zino taasi waa mid macno kaleeto waxa weeye zaniimka in laga wado bimacnaa waa caan oo xumaantu caan ku yahay maxaa yeelay adhiga neefka kolonta lahoo macashiisa ay kolontaasi ka laalaado adhiga intiisa kale waa laga yaqaana waa ka caansan yahay sooma xumiduu marka caan ku yahay oo lagu yaqaana ayadana waa macno kaleeto macaanidaasaa marka ku jirta macna ayib an kaana inuu ahaaday daraaddeed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina tacliilka antaasi waa tacliiliyo xagga horena waa lagu xidhi karaa xagga dambena waa lagu xidhi karaa xagga hore haddii lagu xidho waxay noqonaysaa ha ateecin an kaana inuu ahaaday darteed ha u adeece daa maalin wa baniina inuu yahay ha u ateecin saa waa la dhihi karaa xagga dambena waa lagu xidhi karaa waxaa la dhihi karaa an kaana inuu yahay darteed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina iyo wiilal taa darteed idaa goortii tutlaa la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna lagu akriyo qaala wuxuu yidhahda hadalkan waxaa ka keena marka xoolaha uu haysta iyo wiilashiisa keliya saasay noqonaysa idaa goortii tutla la akriya calayhi korkiisa aayaatuna qaala wuxuu yidhahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore wixii laga soo qoray khuraafaadkii laga soo qoray laga soo sadareeyey sanasimuhu waan sumadaynaa bu rabbi subxana watacala ninka isaga cala alkhurtuumi sanka korkiisaan ka sumadayna khurtuumka waxaa la yidhahdaa khaasatan yani maroodiga sankiisa maroodiga iyo doofaarka sankooda khurtuum la yidhahda bini aadamka sankiisa anfi baa la yidhahda anfi ninka marka san doofaar buu leeyahy iyo san maroodi macnaha sankiisii magacii bini aadamka sankiisa u lahaa inta laga duway baa san doofaar loo yeelay saas maana waa la sumadaya maxaa laga wadaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay arrinkiisa waan caddayn doonaa sida sanka korkiisa ruux sumad ku leh uusan u qarsoomin oo kale baan arrinkiisa u caddayn doonaayo nin walba wuu garan doonaa inuu yahay ninkii xumaa sida ibnu jariir tabari waa dooranay waxaa kaloo la dhihi karaa maalintii beder baa nabar ka gaadhay sanka oo halkaasaa seefi kaga dhacday taasaa laga wadayoo waan sumadi doonaayo sanka korkiisaan ka sumadi doonaa waa seeftii beder ku dhacdayna waa tafsiir kale wey tafsiir saddexaadi waxa weeye aakhare marka la gaadho wejigaa madoobaanaya
madoobida wajigu uu madoobaan doonaa laga wadaa sanka korkiisaan ka sumadayna intaasiba waa tafaasiir jirta wey macna sanasimuhu waanu sumadaynaa buu rabbi subxaana wa tacaala cala alkhurtuumi sanqaroorka iyo sanka korkiisaanu ka